بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ومركل إيو جلنكيني براقونتا ومدشيني براقونتا waxaan marka hore runtii aada uga cudaarin waan aada uga xumahay inayna baryahan wax casharo cusub aynaan soo gelin jaranka iska mashquul adduunyo oo la iskaga jiray awgeed waxaan markaa ardayda dhammaan iyo cid kastoo ku xidhan ka raali gelinaya muddada aynaan soo gelin casharada waxaan ballan qaadaya insha allahu tacaala laga bilaabo waqtigan inaynu si joogta usoo gelin doono casharadeenii taxanaha ee ku saabsanaa programkii quick book inagoo kaga soo hadalnay runtii inaynu ku xalin doono ku sheegnay construction company sida loogu sameeyo xisaab inagoo shirkadeeni u bixinay double markaa waxaan doonayaa intaas cudurdaarka inaan ardayda u qadimo runtii aanon yaro mashquulin beryahan oo aan soo gelin cashari muddo dheer aan soo gelin waxaan idiin ballan qaadaya arday haddii alla ka dhigo inaynu halkaa kasii wadi doono ilaa aynu ka gaarino dhammaadka programka aynu companiga aynu sameynay iyo wixii kale aynu ku kordhin karno markaa ugu horeyn sidii ardaydii la socotay baa aad ka warhayseen oo aad ogeydeen waxaynu ni programka waxaynu ku xalin doonaa qaybta financial qaybta loo yaqaano serviceka inagoo soo qaadanay companiga la yidhaahdo double construction company markaa ugu horeyn aynu casharkeena iska bilaabano waxaan leenahay markaa companygii horta programka marka hore soo kicino halkaas inoo yaala desktopka saasaynu soo kicinaynaa ugu horeyn waxaa muhiima inaynu runtii aada la socotaan casharadeenii hore idinkoo kasoo daawanaya janalka bara aqoonta halkaa aynu passwordkii markaa passwordkii aynu usoo bixinay intiinii la socotay oad garanaysaa waxay ahayd double construction aan idhaahdo double 123 double 123 saa markaynu u gallo programka shirkadeena wataa inoo soo baxday waxaan markaa runtii doonaya inaan baraarujiyo oo ardayda ku baraarujiyo waxaynu kasoo diyaarinay programkan ama qeybtan constructionka waxaynu kasoo diyaarinay 5 cashar baynu kasoo diyaarinay casharkan wuxuu noqon doonaa insha allah casharkii 6aad markaa casharkeeni koobaad waxaynu kusoo qaadanay sida programka loogu shubo quick book quick book loogu shubo computerka casharkeeni labaad waxaynu kusoo qaadanay sida markaa company cusub loo abuuro casharkeeni saddexaad laba qaybood baynu qaybinay waxaynu qaybtii koobaad kusoo dhiganay sida loo abuuro kharashka guriga gelaya ee loo yaqaano kharashka alaabta casharkii qaybtii labaad casharka saddexaad qaybtii labaad waxaan kusoo dhigay waxaynu ku dhamaystirnay oo aynu isagana kusoo qaadanay isla sida loo abuuro kharashka gelaya guriga ee qaybta inventoryga ama alaabta casharkeeni afraad waxaynu kusoo dhiganay sida loo abuuro yoomiyaha ama wax loo yaqaano kharashka gacanta ee guriga gelaysa markaa laba kharash baynu halka abuurnay casharkeeni shanaadna waxaynu kusoo aragnay sida markaa loo abuuro guryaha ay shirkadu qaadanayso oo ay dhismaheeda qandaraas ku qaadanayso haddii la idhaahdo marka waxaan idinku boorinaya oon aada idinka codsanaya si casharadu ay macno u sameeyaan inay casharada hore soo daawataan runtii oo idinkoo gelaya baro aqoonta janalka ku qoraya muxuu ahaa youtube-ka ka baaraya ayaan aada idinka codsanaya inaad soo daawataan insha allahu tacaala maanta waxaynu dhigan doonaa cashirkeeni 6aad saan hore u sheegay cashirkeena 6aad waxaynu eegi doonaa oaynu ku dhamaystiri doonaa haddii alla idhaahdo labadaa kharash aynu soo sheegnay midna kharashka gacanta yahay midna uu yahay kharashka alaabta wixii inaga dhinaa ayaan doonaya inaan ku dhamaystiro haddii ilaahay idhaahdo waqti inoo saamaxo intaynu waqtiga ka gaadhno markaa ugu horeyn waxaan leenahay markaa bal reportka haddaynu tagno oo aynu la soo raacno waxaan leenahay halkaa waxaad la soo raacaysa halka company ama financial waxaad ku dhufanaysaa halka balance sheet standard balance sheet standardka markaad tagto tusaale ahaan halkaa waxaynu ka dhigaynaa si aynu wada aragno all baynu ka dhigaynaa halkaa waxaan leenahay markaa asset iyo liability shirkadeeni double construction balance sheetkeeda waa eber waxbay nooguma jiraan waayo sidaad horeba aan idinku soo sheegay wax shaqaa weli baynaan qaban waxaynu ku jirnaa inaynu setting upkii sameyno oo aynu companygii dhisno wixii ay ka koobnayd marka ugu horeyn si aan u dhamaystiro waxaan leenahay labadii qaybood wixii naga dhinaa si aynu u dhamaystirno ugu horeyn waxaynu dhamaystiraynaa kharashka wixii naga dhinaa ama aynu ka tagnay kharashka alaabta waxaan leenahay tusaale ahaan halkaa list baad tegeysaa waxaynu eegaynaa halkaa ay ku qoran tahay item list baynu eegaynaa bal intaynoo abuuran baynu horta eegaynaa waxay naga dhiman kadibna waynu ku dari doonaa waxay noo abuuran saad aragtaan halkaa albaabo waxaa kale inoo abuuran biyo waxaa kale inoo abuuran daaqado garaa-id waxaa kale inoo abuuran istabaradiisa labadiisi nooc istabarada
jaajuur baa inoo abuuran. waxa kaloo inoo abuuran waxa la yidhaahdo jibsinkii, jiingad baa inoo abuuran, masaabiirtii waxa inoo abuuran oo kale, liistii, rinjigii labadiisi qaybood, sibidh, siliig. marka halkaa intaasa inoo abuuran oo intaa qaabkeen usoo abuurana haddii la yidhahdo way soo daawan doontaan haddii la yidhahdo. marka waxaan doonayaa maanta inta wixii naga dhiman alaabta ama alaabta guriga gelaysa wixii naga dhiman inaynu maanta ku darno. marka kulliba dee qofka injineerka ama dhismaha wax ka yaqaana u garanaya alaabta gelaysa guriga tusaale ahaan intan inay wax ka dhiban yihiin. marka wixii ka dhinaa qaabkaynu ugu darayno sidii hore caadiga ahayd waxaynu soo furanaa halkaa ay ku qoran tahay item. waxaynu tegaynaa markaa saynu item cusub ugu soo darno halkaa new ku qoran tahay baan tegayaa. marka waxaan leeyahay service, halkaa service baan ka dooranayaa. marka si tan aynu yar ballaadhino halkaa u saarayaa jeega. waxaan leeyahay marka itemka wixii naga dhinaa waynu garanaa. tusaale ahaan waxay naga dhinaa loox, guriga waxa gelaya loox. marka loox laba qaybood buu leeyahay, tusaale ahaan casaan iyo cadaan way garanayaan dadka dhismo aad bay u yaqaanaan. waxaan leeyahay marka loox cadaan oo kale ayaan kusoo daraya. looxa cadaanka marka kusoo daro waxaan leeyahay marka intaa waa soo koobiyeysanaya sidii caadiga ahayd hore. fadlan si casharadu macna u sameeyaan waxaan idinka codsanaya inaad casharadii hore soo daawataan si aynu u samayn jirnay. marka waxaan leeyahay halkaasaan ku koobi garaynaya, halkaasaan ku base garaynaya. marka halkaa ku base garaysto waxaan leeyahay markaa coska iyo sales price-ka labada mid waxba kama bedelayo. halkaa ay ku qoran tahay expense account ayaa waxaan ku xidhayaa kharashkii aynu soo abuurnay ee ah kharashka gacanta. waxaan leeyahay markaa kharashka gacanta ayaad ku abuuray dhahdo cafwan kharashka alaabta. kharashka gacanta isaga waynu arki doonaa wixii naga dhinaan ku dari doonaa hadii la. marka waxaan leeyahay kharashka alaabta ayay kamid tahay. halkaa marka ay ku qoran tahay account, ay ku qoran tahay income account waxay ku xidhan jirnay sidii caadiga inoo ahayd construction income. marka construction income-ka hadaynu doono Soomaali baynu ka dhigi karnaa, waxaynu ka dhigi karnaa kharashka gelaya allahumma salli ala Muhammad, kharashka dakhliga guriga ayaynu odhan karnaa. markaas halkaa Soomaali uga dhigno waxaynu halkaa ed ay ku qoran tahay baan ku dhufanayaa. marka waxaan leeyahay dad waa iska Soomaali garaysan. waxaan leeyahay dakhliga guriga macali waxay guryaha qaadana shirkadu qaadanaysa waxay naga soo gelaya. waxaan leeyahay markaa kharashka aan idhaahdo dakhliga guriga markaa idhaahdo waxaan leeyahay safe and close. marka halkaa saad u aragtaa halkaa inoogu xidhmay kaasi. hadha waxaan doonaynaa faa'iidada ay leedahay waxa weye income-kaas waxa weye wixii dakhliga ayna soo galaa halkaa aynu u bixinay dakhliga guriga ayuu inoogu ururaya ama dakhliga guryaha oo kale jawac baynu ka dhigi karnaa. marka waxaan leeyahay safe okay baynu ku dhufanaynaa. marka looxi weynaga abuurnay waxaa kaloo isagana kusoo darsanaya haddana looxi casaankaana waa kusoo darsanaya. waxaan leeyahay markaa new baan tegaya isagana sida tan oo kale safe baan tegaya, aan idhahdo service baan tegaya. waxaan leeyahay halkaa markaa loox isagana waa loox casaana ama kii hore waxaa la abuuray cadaan, kana waa casaan baan leeyahay, kana waa casaan loox casaana. marka halkaa isagana waxaan ku xidhayaa sidii oo kale kharashka gacanta, kharashka alaabta ayaan ku xidhayaa. halkaana waxaan ku xidhayaa dakhliga guryaha. marka dakhliga guryaha halkaa jawaab aynu ka dhigi doonaa hadii la yidhahdo sida loogu dhigo tusi doonaa. waxaan leeyahay okay waan kaala siinayaa. okay markaan siiyo waxaan kusoo darsanaya kaloo inaga dhiman leyrhka, xadhkaha leyrhka oo kale guriga inta badan xadhkaha leyrhka isagana way galaan. waxaan leeyahay isagana halkaas service. halkaa markaa waxaan leeyahay xadhkaha leyrhka isagana waxaan ku xidhayaa. hadda halkan koobi baad soo samaysan kartaa haddaad iska dhaafto description-kaana wax dhibaataa ma laha. laakiin kulliba isay uga muuqato halkaa waa inaad labadaa beeloodba ay ka muuqdaan, labadaa beeloodba halkaa iyo halkaa. waxaa leeyahay markaa dakhliga ayaa isaga waxaan ku xidhayaa waan leeyahay kharashka alaabta ayaan ku xidhaya. halkaa isagana waxaan leeyahay markaa waxaan ku xidhayaa dakhliga guryaha. marka waa muhiim saddexda intaa meelood halkay ku qoran tahay expense account inaad buuxiso iyo income account. halka labada meelood ayaa markaa compulsory qofku inuu buuxiyo amaad waajib kugu tahay inaad buuxiso. waxaa kaloo kusoo darsanaynaa guriga waxaa kaloo gelaya waxa la yidhaahdo qasabado guriga tusaale ahaan qasabado way gelayaan. marka waxa la yidhaha isagana qasabado
ayuu gelin lahaa marka halkaa inoo ballaari marka inoo ballaariso inta laga soo koobiyey halkaa inoogu soo shub labadii meelooda dakhliga inoogu xidh kharashka gacanta kharashka alaabta cafwan kharashka alaabta waxaa leedahay marka halkaana dakhliga ayaa ku xidhaya dakhliga marka muhiimku waxay tahay inaad dhammaan alaabta guriga gelaysa inaad marka hore wada dhamaystirto marka cashiradii hore qaar badan soo qaadanay intii naga dhinaydna cashar kale ku dhamaystirina insha allahu tacaala inta waqtigu inoo saamaxo waxa kaloo naga dhiman ku darsanaynaa bahasha loo yaqaano xaawista waad garanaysaan oo bahashan bulaacadaha iyo wax loo isticmaalo tusaale ahaan xaawis oo bahala bulaacadaha loo isticmaalo iyadana guriga laga maarmaan inay gasho iyadana waxaan leeyahay halka iyadana isoo koobiyey halkaa igu soo shub iyadana labadeedii meelood loogu xidh kharashka alaabta iyo dakhliga igu xidh intaa waa inaan qofku ilaabin haddaad tusaale ahaan intaasoo labada meelood saddex dhowrka meelood ee buuxin haddaad ka tagtay uga badan kuu qaadan maayo uuna ku diidaya waxaa kaloo kusoo daraynaa oo inaga maqnaa marmar marka marmarka inta badan kulliba dhowr nooc buu yeeshaa oo garanaya dadka dhismo aad bay u yaqaanaan waxaa leedahay markaa tusaale ahaan marmarka labada marmar ee ugu caansan baynu gelin waxaa leedahay mid waxa la 40 by 40 waa ka caadiga dhulka la dhigo midna waa ka gidaarka oo isaguna 30 by 20 ayaa la yiraahdaa inta badan way yaqaanaan dadka waxay dhismaha ka shaqeeya marka waxaa leedahay halkaa isagana waxay ku xidhanaa dakhliga aan ilaahdo kharashka gacanta kharashka ee ku xidhan kharashka alaabta waxaa leedahay markaa halkaan waxa ku xidhaya dakhliga guriga kadib kana oo ka waasiinaya qaybtiisii labaad ee kale ayaan marmarkana isagana abuuraya aan ka gaarsiiyo waqtiga loo ilaalinaa isagana waxaa leeyahay markaa isagana waxaa leeyahay marmar waxaa leeyahay marmar 30 aan ilaahdo 30 horeysi 30 by 20 halkaas isagana inoo balaari isagana inoo soo koobiyey halkaa inoogu shub halkaa markaa saa ugu shubto labadii meeloodna inoogu xidh kharashka alaabta iyo dakhliga isagana inoogu xidh iyo dakhliga guriga ama dakhliga guryaha kulli hadha jamac baynu ka dhigi doonaa si guud bay guryaha oo dhan ugu wada xidhnaan doonta haddii aan idhaha kaana waxaa leeyahay okay baa siinayaa waxa kaloo aan isagana ku darayaa oo isagana muhiima waxaa loo yaqaano plywoodka inta badan guriga uu galaa plywoodka waa loo baahdaa isagana waxaa leeyahay markaa markaa plywoodka isagana inoo soo koobiyey halkaa inoogu shub labadii meeloodna inoogu xidh marka waxaa leeyahay dakhliga guriga marka isagana waxaa leeyahay okay waa sidee marka halkaa isagana intaasaynu ku abuurnay waxa muhiima markaa wixii markaa aad ka tagto ee kale ee muhiima saasaad ugu daraysaa marka ugu horeyn dhammaan waa inaga halkaa ku darsanay qaybta waxa kale aynu eegaynaa markaa isagana inaynu iyagana soo furno isagana waxaynu soo furaynaa halkaa waxaynu soo furaynaa kharashkii kale aynu u bixinay kharashka yoomiyaha ama kharashka gacanta loo yaqaano marka waxa muhiima inaad kala ogaato labada midba halkan ka abuurayo kharashka alaabta waxaan ka abuuray item list kharashka kale ee gacantana sidaad hore la socoteen oo idinkoo aan idinku boorinayn casharada soo daawataan runtii waxaan ka abuuray halkaa ay ku qoran tahay chart of account marka chart of account baan tegayaa waxay leedahay markaa waxaynu laba kharashoo waaweyn baan marka hore soo abuurnay labada kharash mid wuxuu ahaa kharashka loo yaqaano kharashka gacanta midna wuxuu ahaa kharashka loo yaqaano kharashka alaabta marka kharashkii alaabta halkaynu kaga soo dartay wadayaarkii waxaan doonayaa isagana inaan tuso bal kharashka gacanta wixii noo abuurnaa wixii naga dheer baynu ku dari doonaa haddii aan marka waxaan leenahay kuuligaas aynoo abuurnaa marmar leh nijaar qaldawale rijiile wastaad markaa tusaale ahaan halkaasoo kale waxay naga dhidhaa inaynu ku darsano formal oo kale ku darsan kartaa marka waxaan leenahay isagana halkaasaad kaga darsanaysa waxaa leedahay accounting kadibna layu aan tegayaa waxaa leeyahay markaa formal buu ku yidhi muxuu noqonayaa formal waxaynu u qaadanay as expense kharashaad inuu yahay casharadii hore kusoo faahfaahiyey runtii way ku noqon doontaan waxaa leeyahay markaa halkay ku qorantay continue ku dhufanayaa
continue waxaa leeyahay markaa halka format baan ku qorayaa format waxaa leeyahay markaa format markaa dhahdo wax kale waxba kama bedelayo halkaasaan ku daynayaa markaasaa mid kale u abuuro waxaa leeyahay halkaas save and u ay ku qoran tahay ayaan ku dhufanaya marka magacu tusaale ahaan formatkaasi hore u jiray oo kaa wuxuu ku this name is already use please use another marka waxaan leenahay mar hadduu inoo jiray kaasi uu inoo abuuran yahay waxaynu ku daraynaa kale wax la yidhaahdo biralaab oo kale waxaan malaynayaa biralaabkaasi inay inoogu jirin birolaab oo kale biralaabkaasi isagana waa muhiim isagana waxaa saasaan ku dhufanaya marka biralaabka waxay noo qaatay isaga inoogu jirin biralaabka waxa kaloo ku darayaa oo muhiima wax loo yaqaano ilaaliye guriga inta badan guriga ay shirkadu qaato cid qof baa jooga oo inta badan shirkada u qaabilsan inuu ilaaliyo oo ka warhayo oo hadday rusheynta noqoto iyo ilaaliyo habeenkii isagana ama maalintii iyo biyo la siiyo marka isagana waxaa leeyahay saasaan ugu darayaa marka intaa markaan sameeyo waxaan filaya wax kaloo iga dhinaa inaana jirin wax kaloo iga dhinaa inaan jirin wixii kale soo baxa xagga dambe hadhow ka arki doonaa qaybta markaa intaa labada qaybood wixii naga dhinaa intaasaan kaga baxayaa waxaan kusoo gabagabeynayaa casharkeenan oo ku darayaa qaybta aynu bixinay kharashka gacanta ayaa waxa muhiima imika sayn hore soo sheegnay labada kharash way kala duwan mid oo kii gacanta mid oo kii alaabta marka kharashka gacanta ayaa labada waxaynu ka abuurnay waxaynu ka abuurnay midna lease baan tegey mid waxaan ka abuurnay halkay ku qoran tahay item lease oo kharashkii alaabta midna waxaan ka abuurnay halkay ku qoran tahay chart of account oo kharashka gacanta marka hadhow kulli faa'iidada siday u kala leeyihiin hadhow markaynu dhex galno oo aynu shaqada bilowno ayaynu arki doonaa haddii la idhaahdo marka waxaan doonayaa inaan casharkeena kusoo gabagabeeyo kharashka gacanta ee aynu ka abuurnay chart of account oo aynu bixinay kharashka gacanta oo intaas hoos tegayaan kuuliga iyo barbarlaha iyo nijaarka iyo qadalahaas hoos tegayaan ayaa waxaan doonayaa inaan mar labaad dib u abuuro adigoo halka ay ku qorantahay item list mar kale ku daraya sababtuna waa maxay sababtuna waxa weeye hadhow markaynu sameynayno estimationka markaynu sameynayno qofka qadaraaska aynu ka qaadano ayaa muhiim sida dee kuliba aad garanaysaan muxuu ahaa dadka dhismaha ku dhex jira ay garanayaan qofka marka loo sameynayo estimationka marka loo sameynayo ama guriga loo qiimeynayo waxaa la sameynaya kharashka alaabta iyo kharashka gacanta dhammaan waa laisku wada qiimeeyaa si guud baa laisugu wadaraa si guud kolkaa waxaa qofka loo sheegaya markaa wixii guriga ka gelay hadday gacan noqoto iyo hadday alaab noqoto marka estimationka markaynu sameynayno si ay uga muuqato estimationkaasi muxuu ahaa alaabta gacanta kharashka gacanta uga muuqdo waxaynu sameynaynaa mar labaad baynu halkan ka abuuraynaa faa'iidadiisana markaynu shaqada bilowno ayaynu arki doonaa haddii la idhahdo marka waxaan leeyahay halkaa iisoo fur list of counta iisoo fur waxaan leeyahay markaa sidii aan tiimaka ugu darayo kale ayaan iyagana ugu daraya halkaa waxaan leeyahay markaa new halkaasaan ku dhufay new ay ku qoran tahay marka serviceka saan sii dooranaya serviceka markaad doorto halkaa waxaan ugu horreysiinaya wax loo yaqaano format marka formatku waxaa isku qaldina arday formatku wuxuu inoogu jiray chart of account buu inoogu jiray halkan kale ee list of idhaahdo list of itemska markuu inoo soo galo labadaasi saameyn iskuma yeelan way kala duwan yihin midba meel buu ku jiraa marka waxaan leenahay qaybteenu soo furayna waxba ugama baahnin kan oo halkaama soo furayna waxba ugama baahna description badan uma baahna marka waxaan doonayaa inaan magaca un halkaa geliyo waxaan leeyahay markaa format saasaan kaga tegaya halkaas unbaa muhiima inaan ku xidho waxa loo yaqaano dakhliga guriga ayuu halkaa ku xidhaya wax kalama sameynayo meel kale wax kale kagama xidhayo waxaan leeyahay marka format waxaa inoo qaatay markii hore waxaad arkeysaa markii hore ku laba celiyo oo kii igu soo celiyay laakiin imika uu qaato way laba meelood baa kala duwan waxaan kaloo ku darayaa wax la yidhaahdo nijaar isagana nijaarna kusoo darsanaya intii markaa kharashka gacanta aynu u bixinay ayaynu mar labaad halkan dib usoo gashanaynaa faa'iidadiisana markaynu estimationka sameynayno ayaad arki doontaan haddii la idhahdo waxaa leeyahay markaa wastaad aad dedejiyo wastaad isagana halkaa waxaa ku xidhayaa dakhliga guriga ku xidhaya dakhliga guriga aad dedejiyo waqtiga igu yar dakhliga halkaa ku xidhaya waxaa kaloo abuuraya wax la idhahdo nijaar waxaa kaloo abuurayaa nijaar isagana halkaa waxaa ku xidhaya dakhliga guriga ku xidhaya waxaa kaloo abuurayaa wax la idhaahdo waxaa kaloo abuurayaa markaa waxaa iga xasuusina arday ha isku qaldina labadaa qaybood say u kala duwan yihiin saa labada qaybood u kala duwan yihiin
midna waxaynu ka abuurnay chart of account, midna list of items baynu ka abuurnay. Markaa mar labaadna list of account baynu ka abuurnay, kii aynu ka abuurnay accountska aynu ka abuurnay chart of accountka. waxaa leeyahay markaa waxaa kaloo abuuraya waxa loo yaqaano biralaabka isagana waa ku darayaa waxaa leeyahay dakhliga guriga ayaa ku xidhaya isagana waxaa leeyahay okay. waxaa kaloo abuuraya dhammaan waa wada abuurayaa qarashkii gacanta wada abuuray. waxaa kaloo ku jira waxa loo yaqaano rinjiile. markaa waxaa iga xasuusina inaad arki doontaan marka estimation sameynayno faa'iidada ay leedahay qaybta labaad aynu halka mar labaad kusoo celinay. waxa mar walba iga xasuusina inaad ogaataan waxaynu sameynayna inayna weli shaqadii bilaabin ay tahay inaynu kamberigii sad abgarayno ama xisaabtii kamberiga double construction inaynu dhamaystirno. waxaa kaloo halka ku darsanay wax loo yaqaano kuuli. waxaa leeyahay dakhliga ku xidh saar igu dheeraan casharka waxa doonaya ka gaarsiiyo videogu ka gaarsiiyo. waxaa leeyahay isagana wax kaloo ku daraya wax loo yaqaano qadaloonka sawirka inta badan qoosha waad garanaysaa. isagana dakhliga ku xidh isagu yooyuu qaataa maalintii daily ba isaga wax la siiyaa isagii kuwa kale ku abuurinaba. waxaa leedahay wax kaloo ku daraya wax loo yaqaano barbarle waa ninka barbarka dhiga. waad garanaysaa waa ninka barbarka dhiga. isagana kharash baynu ka dhignay kharashka gacanta. ugu dambeyn waxaan ku darayaa wax loo yaqaano ilaaliye ama ninkii aynu shaqada u dirsan jiray guriga loo ilaalin jiray. waxaa leeyahay markaa ilaaliye markaa intaa ilaaliye kala dakhliga ku xidh waayahay. waxaa leeyahay markaa cashirkeena runtii intaasaan kusoo gabagabeynaya maanta. casharkii 6 weeyaan. casharka 7 ku xiga la socon doonta haddii la yidhaahdo. marka intaa waxaynu ku dhamaystirnay wixii naga dhinaa labadii kharash aynu soo abuurnay. casharka xiga intaynu ka gaarino. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.